fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto si aad u hesho sheekooyinkeena. Ha ilaawin inaad gambaleelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee arka. Waabe 4 gabdhood lah, hooyadoodna aad u tarbiyeyn jirtay. Waxaa timid ajashii hooyadooda marka ay dhimanaysay. Gabadheeda ugu yar waxay jirtay 7 sano, tan ugu weynna waxay jirtay 14 sano. Kadib aabihii wuxuu iska diiday in uu guursado markay dhimatay xaaskiisa. Waqtigiisana wuxuu yeelay inuu Rabbi raali geliyo, kadibna gabdhihiisa ihtimaam siiyo. Gabadha weynna waxay noqonayd mid aabaheeda garab istaagta, walaalaheedana booskooda hooyada u buuxisa. 10 sano kadib waxaa dhacday in gabdhihii 3 yaryareed la soo doonto, balse aabihii wuxuu rabay in uu guuriyo gabadhiisa weyn, iyadana way iska diiday. Maxaa yeelay aabihii wuxuu ahaa mid waayeel ah, xanuuno badan la soo darsay. Sidaas darteed wuu iska diiday guurkii, waxayna tiri walaalahayga guuri. Aabihiina wuxuu ku raacay go'aankeeda, wuxuu guuriyay gabdhihii yaryaraa. Iyadana waxay guda gashay inay daryeesho aabaheeda oo ahaa waayeel, xanuunana la soo darsay. Kadib aabihii ayaa tiisa timid, wuu geeriyooday. Geeridii aabaha kadib, gabdhihii yaryaraa waxay heleen warqad oo ku qorneyd dardaaranka aabahooda. Waxaan ku qornaa warqadda dardaarankii aabahooda oo ahaa in aan gurigaasi la beecinin, lana qaybsanin ilaa ay ka guursato walaashooda weyn, sababtoo ah walaashooda waxay ahayd mid nolosheeda oo idil u hurta walaalaheeda. Sidaas darteed gabdhihii way diideen dardaarankii aabahooda inay raacaan, waxayna dhaheen waa in gurigan la gadaa kadibna la qaybiyaa, qof walbana qaybtiisa hore u qaataa. Waxaa la beecgeliyay gurigii, waxaana beecsaday wiil. Walaashii weyneedna waxay ka war heshay inuu gurigan beecsamayo, isla markiiba waxay taleefan u dirtay wiilkii beecsaday guriga, waxayna ugu sheekaysay dardaarankii aabaheeda. Waxayna ka codsatay inuu u daayo ilaa ay ka helayso guri ama meel ay iyada degto oo munaasib ku ah. Wuuna ka aqbalay. Gurigii ayuu gatay, lacagtii ayaa la qaybsaday. Gabdhihii lacagtooda ayay qaateen, iyagoona ka fikiraynin walaashooda weyn halka ay ku dambayn doonto. Balse walaashii waxay ahayd mid sii sokootisa oo ku faraxsan joogista guriga. Muddo kadib waxaa taleefan u soo diray wiilkii guriga iibsaday. Gabadhii aad bay u walwashay, way cabsatay. Waxay tiri ballantii miyuu kaaga baxay, miyuu guriga kaa buri doonaa? Taleefankii ayay qabatay, wuxuuna ku yiri asigoo dhoola cadeynaya, guriga waxaan kaaga dhigayaa meher haddii aad adiga doonaysid, waayo waxaad tahay gabar waalidkeeda baari u ahaa, aad iyo aadna u qurux badan. Sidaas darteed gabar adiga kaa fiican ma heli lahayn, mana guursan lahayn. Gabadhii aad bay u ooysay, waxayna ogaatay Ilaahay inuusan daayicin qofka muuminka ah oo taqwada badan. Wayna ogolaatay guurkii wiilkii, waxayna noqotay mid ku nool nolol farxad iyo reereen iyo jacayl, wax walba kula nool guriga aabaheeda. Sidaas ayayna ku noqotay gabadhii gabar fiican, oona Ilaahay ugu abaalmariyay inay gurigeeda dib u hesho, nin fiicanna hesho, ilmana Ilaahay siiyay.